ومحسنتي walaalkay waxa waay caawa waxa ka dhacay magaalada Wajeer waxay maqleen dabaabab iyo waxyaalo oo qarxaya badan oo dhacaya oo dhinaca militariga ka dhinaciisa ka dhacaya dadka waxay murugoodeen waxay dhaheen waxa dhacaya maxay yihiin waxaad ogtahay beri hore mar bilay wax laga joogo arin noocaasna inay ka dhacday kaambiga militariga صح soo dadka waa yara baqeen laakiin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadweynaha ku dhaqan magaalada Wajeer arintaas inay ahayd arin oo training oo maaragtay militariga tababar lagu sameeynayo oo na dhaafsaneen kaambiga militariga xarada militariga dhaafsaneen oo wax oo maaragtay militariga dhaxdiisa kale ka dhacay tahay oo dibadda u soo bixin waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo dadweynaha Wajeer inay militariga ay og yihiin in dadweynaha ay la hadlaan wayna la hadleen odayaal Buula Cabdi Aziz iyo eriyadaasna way la hadleen laakiin waxaan rabaa inaan u sheego mar kasta waxa is dhacayaan waxayna siiyaan notice oo inoo sheegaan ayadana waxaan rabaa reer Wajeer inay u arkaan militariga inay yihiin dad jiiraankooda laakiin cadowgooda ahayn kuliyanta qarkood way la soo hadleen laakiin waxay u egtahay in la faafinin warka la faafinin laakiin waxaan markaan wixii hadda ka dambeeyo waxaan isku dayaynaa in warka markii la soo sheego dadweynaha lagu faafiyo صح chiefka oo laga soo maaragtay magaalada dhinacyaha oo militariga u dhow chiefafka maaragtay beesha loo magacaabay in loo soo sheego ayagana ay dadweynaha u gudbiyaan صح marka laakiin waxaan rabaa dadweynaha inay ogaadaan arinta dhacday arin waxay ahayd oo tababar moogi arin maaragtay oo dib kale inuu jirin waxbana dadka dhibaatana uma geysanin umana geysani doono mana ogolaanayno dadkeena dhibaato in loo geeyo waxay militariga waxay ka mid yihiin dadweynaha Wajeer ayaga iska maaragtay kaambiga ay ku jiraan waxay ka mid tahay Wajeer East waxay ka mid yihiin dadweynaha Wajeer waxa waaye wiilashii iyo gabdhihii u dhashay Kenya oo Wajeer ka shaqeynaya marka waxaan rabaa dadweynaha inay ogaadaan dib inuu jirin oona maaragtay militarigana ay diyaar u yihiin in maaragtay dadweynaha mar kasta ay la socdaan oo wax kastana la socodsiiyaan